waxaan joognaa degmada Cadale gaar ahaan masaajid Cali Guduud saraakiisha qaybahooda kala duwan jananada iyo saraakiisha kaleento oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan maamulka gobolka iyo kan degmooyinka qof kasta oo meeshan joogto maanta waxa loo wada yimiday ama aan meeshan u nimiday cadawga muddooyinkan meeshan ummadda ku dul fadhiyay masaajid Cali Guduud in laga dul qaado oo dadkaanu ay nabad muddo 15 sano iyo ka badan ay dadkan nimankan dul saarayeen in dadkaanu ay helaan maartay nabad iyo nolol bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ay ku hayeen ummadda laga dul qaado nimankan qawaariigta waxaan maanta taaganahay qof kastoo maartay horu aragtay meesha inta qoryaha soo qaateen ayuu garar waaweyn ay ka qudbayhayeen geedka hoostiisa ayaan taagana qof ka taqaana tuulada masaajid Cali Guduud ama deegaankan taqaano aqoon u leh waxay arki kartaa in raqayga ay ka hoos qudbayhayeen ay ka bootayhayeen dadka ku cayhayeen ay madaxda dalka ku aflagaadayhayeen inaan taagana maanta saraakiishii ciidamada oo dhan iyo anagoo dhan dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka ugu horeeyo kan isteedka iyo dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshada deegaankan joogto oo ayadana si weyn isu soo abaabushay oo muddooyinkan dhan la isu abaabulayay maalmo horaata waxaa dhacday inay maaragtay xoogaay dagaal yar oo ka dhacay dagaalkaas wuxuu ay tijaabo intay la eegina la fiirihayay waa la tijaabiyay markii loo soo diyaar garoobana fulanimada lagu yaqiina ka muuqato way carreen marka anaga u soo diyaar garoona maanta ay ballantaynina way naga carreen meeshii ibra u nimid horta nasiib wanaag in la soo yimaado aad u wanaagsanaa lahayd oo la iska hor yimaado laakiin waxaan ogaanay inay boontadooda iyo waxa ay sheegayeen ay beenta iyo propaganda dadkuna ay sidoodaba ay ku dhaqmaan sida dhurwayga u dhaqmo kala dhurwaygu qof soo jeedo ama wax soo jeedo ma cuni kariyo wax dagan ayuu cunaa sidaas oo kale inay dadka gaadi jiraan inay meena ku gaadaan inay dadka meelaha joogoon maartay markaas aan taxadir iyo attention ku jiro inay gaadaan ayuu dhaqankooda noqday marka waxaan leenahay bulshada deegaankan inay soo baxaan ay qoryahooda soo qaataan waa joogan rag badan oo deegaankan kamid oo macaawisley inay joogan aniga ayaa og oo muddo badan maaragtay ku ciilanay inay mar uun deegaanka la xureeyo kuwa kaleento ku jira deegaankan inay soo baxaan ay nimankan inta ka hirto haraadiga oo ku dambeeysa meelaha oo meelaha ku dhuumay ayaga yaqaan inay ka soo saaraan ay mid kasta qoorta ka soo qabtaan haduu yahay mid saka ururiyo haduu yahay mid rufiyaan haduu yahay mid maaragtay qoray qaada jire haduu yahay mid kamiinada dhigay mid la dhaafay nin iyo naag haduu yahay qof la dhaafay ma jirto waa inay soo qabtaan oo sharciga la hor keeno waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed Soomaaliya waa isku wada duubantay inay qawaariijtan iyo kuwan diinta Ilaahay ka been sheegay oo diinta naga dhacay sidoo madaxweynaha noogu sheegay diinta naga bilaqeest inaan diinteena ka reebano wadankeena ka saarno bulshada Soomaaliyeed inay soo wada baxaan gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamadii nooc kasta way taagan yihiin waxayna u taagan yihiin habeen iyo maalin inay garabna siiyaan annagoo garabna la siihayo hadii aan anaga ka jiifano oo aan dadkii daba joogi weyno oo dadkii la socaweyno oo maartay waxay cabaan iyo waxay cunaan iyo garabkooda intii istaagna aan dhihi weyno ninkan waa ninka dhibaatada wado ama kan waa kan u shaqeey jir hadaan dhihi weyno waa ayaan daro waxaana markaas ay u egtaa inaan rabno inaan dulinimo ku noolaano waxaan rabnaa inaan dulinimada ka baxno oo sharaf ku noolaano sharafta ayaana wanaagsan adigoo duliya oo dheere ku nool waxa ka roon adigoo sharaf leh oo gaajo ku nool nimankan waxayna badeen aqoon darayna badeen caafimaad darayna badeen hatabcaninayna badeen xoolahaynay eber ka dhigeen gabdhahaynay ay sharafkooda meel uga dhaceen ummadaan oo dhan qiimaheedii iyo sharafkeedii nimanka meel uga dhacay waay oo noocaas diin islaamna noocaas uma taal ilaahay qof ilaahay la soo kulmay ee beedka ilaahay ka soo baxay aan beedka dhaxdiisa ku dila ama iidiisa ku dila asan diina wada qofka loo sheegayay qof loo sheegayo ilaahay abuurtay oo wax garata ma jirto marka waxaan rabnaa inaan ciidamada xoogga sida aad maartay u taagantiin waa idinkaga mahadcelinaynaa annaga haddaan nahay deegaanka gobolka Shabeellaha Dhexe waa idin garab taaganahay waana idin la joognaa meel kastoo tagtiina haraadiga ku heray inaan ka dabar tirno oo nadiif ka dhigna annaga nala